Yes, bro. Alhamdulillah, fine. How you, bro? Long time ago, bro. Yeah, I'm fine, bro. Covidkii iyo lockdownku wuxuu naga dhigay stay home is Brother, niyo waxaa is leeyahay vaccine qaado, laakiin social media waxyaalo badan is dhaxyahay. Maxaa fiican saaxiib, haddii aad talo fiican iiga siin kartid inaad qaato iyo inaadan qaadan saaxiib ila tali brother. Maxamed su'aashaasi waa su'aal dad badan isweydiinayaan dhalinyaro fara badan baa ka fikiraya inay qaataan vaccine-kii in kale anu jimciye baan qaatay runtii waan shaqaynayay lockdown-kii oo dhan waxaa jira propaganda fara badan markaa waxay noo yaala ma waxaan raacnaa propagandada social media ku jirta mise waan raacnaa talada dhakhaatiirta halkan oo muslimiintu ka mid yihiin dhakhaatiir muslimiin ku jiraan ayaa tijaabiyey xaqiijiyeyna inaan vaccine wax dhib inagu keenahayn marka waa muhiim inaan vaccine-ka qaadano soo kalena dee dalkii aan degnay bal u qadanay caalamka oo dhanna runtii we lucky inaynu vaccine-ka helnay maxamed walaal waan kugu dhiirigelinayaa inaad vaccine-ka qaadatid soo kale waxaan kugu dhiirigelinayaa dadka kale family-gaaga ama asxaabta ah la wadaag fahanka iminka anigu waan qaatay aan honestly healthy baan ahay healthy lifestyle baan leeyahay laakiin waa muhiim inaynu vaccine-ka qaadano si aynu dadka kalena inaan ka fikirno waa muhiim marka qaado vaccine-ka dad badan oo garanayo oo professional ah oo dhakhaatiir ah ayaa qaatay brother talo fiican ay siisay waa isku dhex wareersanaa waana wareersanaa meel wax ka bilaabo ama qaabka u heli lahay ama sida u qaadan lahay ii sheegba waxa muhiim ah haddii shaki uu ku galo waxa muhiim ah inaad la hadashid dadka health professional-ka ah ama dadka fahanka leh benefit of understanding-ka leh ee meelahan degan waad garanaysaa Peter oo Eastern degan ka shaqeeya GP-gan ku yaala Declarasil St George Peter baan kugu hagaajin karaa inta la hadlaan ku oran kara maxamed la hadal haddaad consent qabtid weydii marka Peter baa ku sharaxi doona brother waa garanayaa Peter waa garanayaa thank you very much you welcome brother Mohammed take care of yourself brother yeah. Hello, Dr. Peter. That's Mohammed Saigle. Hi, Mohammed. I directing to you today. DJ, he got appointment, vaccine appointment, and he was hesitant. He don't know what to do. So I directing to you. Yeah. Tell him to come and see me. Yeah. Thank you. Thank you very much. Hi Peter. Hi, DJ. How are you? Good. I spoke with Mohammed. He said to me, speak with Peter. Can you give me some information? Is this the COVID-19 vaccine? Yes. Yeah, great question, DJ, because I know lots of people have questions about the vaccine. They've had WhatsApp videos, Facebook videos telling them they shouldn't get it and conspiracy theories. Peter, why I should take it? Because I'm so young and I don't need it. Why? Yeah, it's a really good point. It is true that if you're younger, you are less likely to have major illness with COVID-19. But by getting the vaccine, you're not only protecting yourself, you're also protecting your family here in the UK, and also if you go traveling abroad, if they haven't had the vaccine, then by you getting the vaccine, it means you're less likely to spread it to them. I would encourage you to get the vaccine because it is safe. I have had the vaccine. My doctor colleagues have had the vaccine. The World Health Organization says that the vaccine is safe. Thank you very much, and I will. Waad mahadsantahay. Thank you.